maamulka dekedaha iyo marsooyinka dalka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka mudane Abubakar Cumar Xaddi ayaa waraysi gaar ah u siiyay RTD waxa uu ka warramay xaaladaha dekedaha Djibouti iyo doorka ku aadan ee dhinaca ganacsiga gobolka iyadoo xilligan ay jirto xiisad amni darro iyo weeraro la beegsanaya maraakiibta gacanka Bab el Mandeb waxaana ka mid ahaa waraysiga gudoomiyaha. C'est vrai, nous traversons une crise difficile. madaxweynaha Djibouti ayaa sheegay in kastoo caqabadaha amni ee ka jira marinada badda caalamiga ah iyo kuwa xiisadaha badda cas dekedaha Djibouti ayaa wali iyagu ah buuri ammaan oo diyaar u ah in ay adeegyo siiyaan maraakiibta iyo ganacsiga caalamiga. madaxweynuhu waxa uu xusay buuri in Djibouti ay maanta leedahay 6 dekedood oo casri ah kuwaas oo awood u leh in ay u adeegaan dalalka gobolka. waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in la sameeyo maalgashi dheeraad ah oo dekedo cusub ah balse diiradda la saarayo sidii si wanaagsan looga faa'iideysan lahaa kabayaasha jira. sidoo kale waxa uu tilmaamay in kororka kharashaadka gaadiidka badda uu saameyn ku yeeshay ganacsiga isagoo oo sheegay in qiimaha kontaneerada gobolka uu ka kacay 3,000 ilaa iyo 10,000 oo dollar. waxa uu carabka ku adkeeyay in buuxinta awoodda dekedaha ay weli ku xirnaan doonto xaaladda dhaqaalaha caalamka iyo kan gobolka. abdaad buu mahadsan tahay. wararka kale ee qodobkaas la xiriirana waxaa ka mid ah boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ku baaqday isla kolkaana abaabulaysa isbahaysi military oo looga hortagayo weerarada iyo hanjabaadaha lagu qaaday maraakiibta ganacsi ee maraya badda cas iyo Bab el Mandeb. qodobka iyo qodob la xiriira amuurtaasi waxaan ka wareysanaynaa wariye Maxamed Cabdi. Djibouti oo xoojinaysa doorkeega ah amniga badda caalamiga. Djibouti waxa ay xoojinaysaa kaalinteeda istiraatiijiga ee ilaalinta amniga badaha gaar ahaan marinka Bab el Mandeb oo ah mid ka mid ah marinbiyoodka ganacsiga ugu muhiimsan caalamka. kadib xiisadaha amni ee ka tagan gobolka dowladda Djibouti waxay mar kale cadeynaysaa khadarow sida uga go'an tahay ilaalinta sharciga caalamiga. xorriyadda maraakiibta iyo amniga ganacsiga badda waxay sidoo kale diiday talaabo kasta oo dhinac ah oo wax u dhimaya madaxbannaanida dalalka xeebaha leh iyo xasiloonida gobolka. dhan kale iskaashiga caalamiga ayaa sii xoogeysanaya. Djibouti waxay heshiis la seexatay howlgalka badda ee midowga Yurub ee lagu magacaabo SPS kaasoo lagu taageerayo ilaalinta maraakiibta ganacsiga ee mara badda cas iyo gacanka Carmeed ee adeegsada. heshiiskani wuxuu sare u qaadayaa doorka dekedaha Djibouti oo noqday xarun muhiim u ah howlgallada amniga badda. warbixino caalami ah ayaa sidoo kale muujinaya dadaalada Djibouti casriyeynta ilaalinta xeebaha ee horumarinta kaabayaasha dekedaha iyo sugidda marin ay maraan qayb weyn oo ka mid ah ganacsiga adduunka. sidoo kale isbahaysi cusub oo difaac badeed oo caalami ah oo ay hormuud ka tahay Sacuudi Carabiya ayaa diiradda saaraya wadaaga xogta iskaashiga amniga iyo horumarinta wadooyinka muhiimka ah ee marinbiyoodka ay adeegsadaan maraakiibta ganacsiga oo ay maraan marinbiyoodkaasi Bab el Mandeb. munaasabadaas taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah looga jawaabo khataraha ku wajahan maraakiibta ka gudbaya badda cas. dhammaan talaabooyinkan waxay muujinayaan himilo midaysan sugidda xorriyadda maraakiibta, ilaalinta ganacsiga caalamiga iyo xoojinta xasiloonida gobolka iyadoo ay ka faa'iideysanayaan goobteeda istiraatiijiga ah iyo kaabayaasheeda casriga ah. Djibouti waxay sii xoojinaysaa in ay tahay tiir muhiim ah oo ka mid ah amniga badda caalamiga.